Bismillahi Raxmaani Raxiim kusoo dhawaada mowduuc cusub. Dhageysta uma dareenta cabsi, argagax, wadna garaac, dhidid badan, gariir, neef qabad, kabowyo gacmaha, daamanka ama faruuryaha oo ku dubaaxiyo, dalabo iyo wareer adiga oon wax dhib ah la kulmin, kuu sawirma inaad dhiman rabtid ama dhib weyn kugu soo fool leeyahay oo in laga ag tago ma iska ilaalisaa. Haddii jawaabtu haa tahay, cashirkan adiga ayuu kugu socdaa ee ka faa'iidayso lana wadaag bulshada. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka East End. Waxaa xaaladan loo yaqaanaa cilladda argagaxa, afka qalaadna lagu dhaho panic disorder ama panic attack. Waa nooc ka mid ah cilladaha walaaca iyo walwalka. Waxa uu keenaa argagax oo ah dareen cabsi oo aan sabab lahayn. Waxaa badanaa lagu qaldaa xanuunada wadnaha ku dhaca sida wadna qabadka, maadaama qofku uu dareemayo astaamo u badan dhinaca wadnaha, laakiin markii baaritaan la sameeyo waxba laguma arko. Waxay kaloo dadka qaar xanuunkan u saarayaan arrimo kale sida jinniga, ruuxaanta iyo wixii la mid ah. Qofku wuxuu si lama filaan ah u dareemaa cabsi iyo walwal in qofku dhiman rabo oo kale, garaac wadnaha oo bata, dhidid badan, jareen jirka ah, shafka oo ku xanuuna oo aad dareentid laab ciriiri, neefsashada oo dhib kugu noqota, dareen in lagu ceejin rabo oo kale, lalabo iyo matag, dawakhaad jirka meelo ka mid ah oo aad ka dareentid kabaabyo ama in wax lagu mudmudayo oo kale, khaasatan gacmaha iyo faraha. Argagax waxa uu imaan karaa xilli kasta oo meel kasta ayuu kugu qaban karaa digniin la'aan. Waxaad ku noolaanaysaa cabsi oo aad ka baqayso inuu mar kale kugu dhaco, waxaana suuragal ah inaad ka fogaato meelaha uu hore kuugu qabsaday. Dadka qaarkiis cabsida ayaa ka dhigto kuwo howlgab ah, mana ka baxaan guryahooda. Tusaale ahaan, haddii cilladda argagax ay ku qabato qofka safar dhexdii, wuxuu ka fogaanayaa inuu safro. Haddii ay ku dhex qabato suuqa, wuxuu iska ilaalinayaa inuu suuqa aado iyo wixii la mid ah. Cilladda argagaxa waxay ku badan tahay haweenka marka ragga loo eego. Caadi ahaan waxay bilaabataa marka dadku dhalinyaro yihiin, waxaana lagu tiriyaa xanuunada casriga ah, tan oo aad ugu soo badanaysa dunida. Mararka qaarkood waxay bilaabataa markuu qofku ku jiro xaalad kadeed, niyad jab, iyo culays dhinaca guriga ama shaqada ah. Xanuunka wuxuu qofku hayaa muddo gaaban sida 10 ilaa 15 daqiiqo, kadib caadi ayuu kusoo laabtaa. Dadka badankiisa waxay ku bogsadaan daaweynta. Daaweyntu waxay kugu caawin kartaa sida loo aqoonsado isla markaana loo beddelo qaabka aad u fakarto inta aysan keenin argagax. Daawooyinka ayaa sidoo kale ku caawin kara. Haddii aad dareemayso cilladan, waa muhiim inaad la xiriirto dhakhtar ku takhasusay cudurrada dhimirka ama cilmu nafsiga, iyagoo kaa caawin doona xanuunkaaga insha Allah. Waxaa jiro siyaabo kala duwan oo ay ka mid tahay wada sheekaysi, jimicsiga neefsashada, daaweyn iyo siyaabo kaleba. Fadlan ku dadaal Quraanka iyo Alla ku xirnaanshaha. Dad badan oo xanuunkan qabo waxay ku reystaan Quraanka markii lagu akhriyo iyo markii akhriyaanba, maadaama uu ka khafiifinayo xaaladda kadeedka oo ay markaas ku jiraan. Halkan ayaan kaga baxay casharkan. Wixii su'aalo ah fadlan noogu reeb qaybta comments-ka ee muuqaalkan. Waana mahadsantihiin.